caawa waxa lagu guuleysanayaa bajaaj TV dahab basaarad mobile iyo hadiyado xirmooyinka internetka ee shirkadu bixiso iyo ku hadalka ah 100 macmiil ayaa heli doona caawa halka ku heli doona sida ay u heli doonaan waxa weeye barnaamij daahfuran oo shafaafiye ah transparency ah shaashada aragtaan waxa ku yaala dhalada qaybta dhalada waxa ku yaala system shirkadu ugu tala gashay dhammaan macaamiishii shuruudaha buuxiyay oo asbuucii la soo dhaafay wax ku shubtay ayaa halka lamarooda ku wada jiraan systemkaasi ku jiraan anagu ma naqaano cid ay yihiin ma garanayno caawa cid maaragtay guuleysan doonta dhammaan macaamiishii shuruuda buuxiso dhoon baa ku jirta oo malaayiin gaaraysa 100 macmiil baa laga rabaa caawa in halka ka soo baxaan systemkaas anaga shaqaalaha Somtel ma taaban doono banaankaasana ka joognaa mas'uuliyiintan gaashayda fadhiya oo madaxda dawladdu ka mid tahay maayarka iyo agaasimaha iyo taliyaha iyo nabadoonada iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo shacabweynaha halkan fadhiya idinkaas soo saari doona caawa xuli doona 100kaas macmiil ay guuleysanayeen tusaale macmiilka ugu horeeya ay ku guuleysan doona bajaajta systemkaas malaayiinta qof ku jiraan baa waxa dul tagi doona maayarka degmada Buurtinle systemkaas u taaban doona systemku wareejinaya malaayiin qof oo macmiil oo Somtel leedahay oo Puntland oo kala jooga ayuu wareejin doona hal qof uga soo qabanaya qofkaas caawa wuxuu noqonayaa qofkii ku guuleystay bajaajta anagu ma naqaan ma garanayno maayarka taabanaya laftigiisu ma garanayo inagu idinkina ka fadhida ma garanaysaan laakiin barnaamijka waxa halka ugu qabanay idinkuna maqaanti ka noqotaan mas'uuliyiintu maqaanti ka noqdaan bulshaweynta reer Puntland caawa maqaanti ka kacaan barnaamijkaas inuu yahay barnaamij daahfuran حتى قفك ولا وعد دونا ميل وتشوف أنو ما قرينه برنامج كعبال وجد كيس وحوها إن معاميشة شركة Somtel Puntland لو سميو عبال علين شركة دو وشركة جناعسي كانت أديجيو كل الدول جارهان أديجا إسقارسينتا له معامل آد وتربضن وحيجو أن ستي إني معاميش هذا وما هاد عليسو ونا أبال جدو إني معامل شركة Somtel أيهين سدا أوجد waxay u diyaarisay hadiyado qaaliya oo waaweyn oo ay kamid yihiin gawaari ay kamid yihiin bajaaj ay kamid yihiin qasaarad ay kamid yihiin TV-yo ay kamid yihiin dahab ay kamid yihiin mobile ay kamid yihiin xirmooyinka internetka iyo ku hadalka ee shirkadu ay bixiso dhammaan waxay ugu tala gashay inay kaga farxiso macaamiisheeda kala duwan sida awgeed shirkadu barnaamijka markay daahfurtay 18 bisha waxay go'aamisay ku dhawaaqday asbuuc walba inay abaal marinayso 100 macmiil asbuucii koowaad waxaan ku qabanay oo khamiistii la soo dhaafay ahayd magaalada Qardho oo lagu daahfuray asbuucii koowaad 100kii macmiil ugu horeeyay oo la abaal marinayay 100 macmiil ayaa khamiistii hore helay abaal marino kala duwan caawa waxa magaalada labaad ee asbuucii labaad lagu qabanayaa ay shirkadu u dooratay inay noqoto degmada Buurtinle